wadanka Puntland cadow badan bay leedahay banaanka cadow badan baa nagaga socda dhibaato badan baa wadanka jirta runtii aynu isu sheegno dadku badi munaafiqiin baa loo yahay nin la arko cabashu wadaa Puntland ma jirayso waa baaba'aysaa anigu waxaan ogahay dawladdu waxyaalo badan way qabatay shuruucna waa 9 sano ayay jirtaa cadowgeennina meel arku ka hadlaya wixii aynu macaadin ama shidaal ama weligay ka hadli jirnay waxay u soo bixi waayeen maxaa jira nin kasta oo halka jooga warqadaha la qoraa Puntland ma jirto waa baaba'aysaa yaynaan been isu sheegin maanta dunta haddii la hadlo la rabo in la sheego dawladda aynu gacan siino aan la socono dawladdan hal baan leedahay anigu waa soo kale idinka ay u khasabishaan hadal waana marka waa hadlaya dunta meeshii sheegay dawladda waxaa laga codsanayaa inay ku dadaasho wixii waa muujisay dagaalada ka socda waa u jeedaan waddanka oo ku baaba'ay shicbigeenu shicbi fiican weeye waa fiican yahay macaadinteeni waa la diiday waxaa la yidhi dawladda federaalka ah weeye waxay tiri ma ogolin in la soo saaro bal waxaa dhacay oo nologu diiday hala sheego dadkeedina waa shaqaynaya waadaan joogay halkan iyadoo wax la arko ay noo diyaar tahay dadkeena wada qori jiray weli haddee ragga halkaya nin la arko waa cabanayaa dawladda waxbuu ka jira wartoose oo u sheeg haddii weli ou ka qaadaan kuuri dadka haddaad u malayso meesha waa fadinaynaa war wadanku waa baaba'aya waana been qabiiladii hadda isimadii odayaashii raggii waxgaradka ah war wadanka u soo jeeda Puntland yayna xafladii hadda uu sameeyey ninka la yidhi shure uu sheegay gabadhii xaaskiisu waa maanay taasaa runahay waa been baad isu sheegaysaan waxbaad samayna waxbaan samay ninaan cabanayn ma arag kuwa dawladda ku jira ayaa cabanaya waxaan idiin sheegayaa Puntland leeyahay saas ku sida naloo neceb yahay inuu isaga daafay soo bixi jirnay haddana waxaan ka faqayaa gobollada cusub maamulada cusub yahay la dhaafo waxaad isaga ku wadaan hadda ay ku socoto waxay saasay Soomaaliya noqon Puntland noqon doonto ayna u baabi'i doontaa heesahan iyo waa been maanta la sheegayo idinka ay u qasabtaan hadda Puntland waa idin jiray awalna madaxweynaha inaan ku yimaadaan waray wax wanaagsan beenta iska daaya lama yaqaan waxaan ku sheegay Puntland markii intay xuduudda leedahay banaanka nin la arkaba wuxuu ka sheegtaa qoladaasaan ahay xisbigaasaan ahay Puntland hadda waa la ilaaway waxa u daran dadkeenii dhaqaalaha lahaa oo Afrika meel la arko geliyey hantidoodii iyo waxoodii kulligood hantidoodii meelo kala geliyeen Puntland geliyaan been baa loo sheegay nin East Africa laakiin alxamdulillah intii halkaa kula dhumata waa dhaca maala intii dhulkiisi ka tegay waxbeedmay marka hadalkayga waxaan ku soo koobaya waa ognahay in la arko waxaa dawladda laga jira kulli waa la ogyahay gurubooyin hadda waxay leeyihin isbedel baa imaanaya saraawiil baa la fashay dawladda cusub baan gelay madaxweynayaasha Maraykanka markay isbedelayaan baa nin la arko wuxuu qoraa isagoo dawladda u shaqaynayo raasoomigiisa wuxuu geystaa dawladda kale jaa waa la war ninkaan 5 sano waa joogayaa nina ka qaadi maayo waa iska hadal walaahi ma shaqaynayo haddii weliba waxaan ku leeyahay 5 sano ka bacdi waxaa dhisto ayaa la leeyahay ila qaran baa socota adiga iyo madaxweyne ku-xigeen iyo ra'iisul wasaaraha khasabna nina kubali wasaaradda Itoobiya waxaan oranayaa Puntland waa la shaqayn jirteen laakiin hadda lagama shaqeeyo international waxaa noo socda dawladdiina la gaarsiiya awal waxay ahayd Puntland waxbaa ka qaban jirteen laakiin hadda waa la soconaa waxa ka socda inaa si kale u socotaa
waa noolaanaysaa shaqadayda intaasaa lagu leeyahay